Shaadi Sharaf oo ahayd fanaanad caan ah ayaa caawa war degdeg ah oo soo baxay waxa uu sheegayaa in gabi ahaan ay macsalaamaysay saaxadda fanka waxaana si cad loo qeexay in ay u weecatay dhinaca ganacsiga sida ay ogtihiin dhammaantiin Muqdisho gabadhan waxay dhawaan ka hergelisay ganacsi aad u heer sareeya yaa kula taliyay fanka inay ka baxdo ganacsigaas yaa u abaabulay intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalka uu gaaro saaxiibo badan haddii aad nagala socoto dhinaceena YouTube-na waxaan kugu xushmeynaynaa in channelka subscribe dhaato oo gambaleelka furato si ay kugu soo dhacaan macluumaadyada aan halkan ku baahino kala waa hagaag Shaadi Sharaf oo wax badan heesaheeda lagu raaxaystay wax badan ka soo dhax muuqatay tiyaatarka goobaha aroosmanka goobaha qaaciga lagu tumo iyo sidoo kale waxyaabaha la halmaala dhinaca fanka ayaa caawa sir weyn la soo qarxiyay waxa ay tibaaxaysaa in fanka gabi ahaan ay si qorsheysan ay kaga baxday yaa kula taliyay gabadhan in ay fanka si weyn kaga baxdo dhawaan waxaa daawateen muuqaalo goob ganacsi ay furatay taa uu ku weyleysaygeeda Cabdifataax saaxiibo badan ayaa soo dhaweeyay arintaas in gabadhan ganacsi ay furato waxaana ku taageeray dad badan ee aad iskugu dhow yihiin kuwaas oo ay ugu badan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo la daneynayo in ay wax ka iibsadaan Muqdisho meel halbowle ah ayay ka furatay ganacsi soo jiidasho leh kaasi oo dadku markan wixii ka dambeeyay ee daneynaysa Shaadi Sharaf in ay ku soo xumaan gaar ahaan taageerayaasheeda wax iibsada iyo sidoo kale kuwa wax shaxaada intuba si kastaba ha noqotee su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay Shaadiyo yaa kula taliyay inay fanka markaan macsalaamayso dadku waxay dirsayaan cidda weydheetumayaan inuu yahay saygeeda Cabdifataax haddaba sheekada sidaasi ma aan saaxiibayaal oo ay ka duwan tahay abwaaniin caan ah oo reer Muqdisho iyo sidoo kale kuba reer Hargeysa oo iskaashaday waxa ay soo saareen in gabadhan Shaadi Sharaf marka hore intay safanka faaruqin loo furo goob ganacsi ay isku madadaaliso sidoo kale YouTube-keedana waxa loo ogolaaday inay ka bariisiiso hase yeeshee Shaadiyo oo u barata fanka ma fududahay inay sidaas ay kaga baxdo fanka Soomaalida maadaama gabadhan carabkeedu uu yahay mid aad u cuncunayo haddii ay maqasho microphone iyo sidoo kale muusig meel ka daaran waa su'aalaha inta badan dadku ay sida weyn ay isku weydiinayaan hase yeeshee qofku alla u qadara waxa u fududaatay ahmiyad kasta fanka inay ka baxdane wax micno badan ah ma sameynayso hase yeeshee iyada waxa ugu jira faa'iido weyn oo dhammaan waxay faaruqday fankii Soomaalida ka aysan ka sameynin inta ugu badan dhaqaale hase yeeshee ku dhex yeelatay magac weyn saaxiibteed qaaliladan ayaa la sheegay inay ka dambeysay gabadhan inay fanka macsalaamayso sidoo kale waxa garab ku siiyay gabar lagu magacaabo Sacdi Siman taa oo ay saaxiibo yihiin qaaliladan Sacdi Siman iyo Shaadi Sharaf labadaas gabdhood oo iskaashaday iyo Daahir Cali Soo ayaa la rumaysan yahay in gabadhan ay u fududeeyeen inay fanka Soomaalida ka baxaan dadka Soomaalida markay ay maqlaan in gabadhan saaxiibadeed ay u fududeeyeen fanka Soomaalida inay faaruqdo waxa ku adkaa doonta aaminaada warkan hase yeeshee qaaliladan oo gabadhan si aad iskugu dhow yihiin horena u faaruqday fanka Soomaalida ayaa kula talisay gabadhan intay faaruqin koor in ay la tashato abwaanada Muqdisho iyo kuba reer Hargeysa ganacsina furata kadibna sidaas ay u macsalaamayso September koodeedii ayaa la rumaysan yahay inuu ku fikirtay Shaadi Sharaf inay fanka ka baxdo hase yeeshee ma suuro gelin saaxiibayaal balse ugu dambeyn caawa war lama filaana ayaa soo qarxay inkastoo aan la ogeyn run ahaanshihiisa oo laga yaabo caawa in Shaadi Sharaf aroos laga wacay heesna ay ka tumayso balse ganacsigeeda wax walba uu xadidayo waxaana la rumaysan yahay saaxiibayaal in gabadhan fanka ay macsalaameysay walow dadku qaar ay aaminsan yihiin taasi suurtagal inaysan ahayn haddaba daawade adiga ma kula tahay Shaadi Sharaf xilligan inay fanka ka baxdo maadaama goob ganacsi ay furatay adigoo dhahayo ganacsigeeda Allah u barakeeyo waad ku mahadsantihiin dhammaantiin daawashada muuqaalkan saaxiibayaal ee noo share gareeya